kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baa daawadayaal kusoo dhowaada warbixino hordhac oo naga soo gaadhaya magaalada Jigjiga ee caasimada dowladdeegaanka Soomaalida kuwaas oo tibaaxa haya in weerar uu geystay mid ka mid ah ilaalada garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi uu ka dhacay halkaas oo la sheegay in uu ka dhashay khasaare iskugu jira naf iyo maal. wararka hordhac ee naga soo gaadhaya magaalada Jigjiga ee caasimada dowladdeegaanka Soomaalida ayaa sheegaya mid ka mid ah askarta dowladda federaalka Itoobiya ee ilaalinaya garoonka diyaaradaha in uu geystay weerar uu geystay dadka shacabka Soomaaliyeed ee halkaasi ka duulhayay kuwaas oo raacayay diyaaradda 3 ama 9 galabnimo ka duushay magaalada Jigjiga ee caasimada dowladdeegaanka Soomaalida midaas oo aado magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. weerarkan ayaa la xaqiijinayaa in ay ku geeriyootay xildhibaanad laga soo doorto degmada Darra Toole ee gobolka Doolo ee dowladdeegaanka Soomaalida. dhinaca kalena dhaawac xooggan uu soo gaadhay xildhibaan kale oo laga soo doortay magaalada Qabri Dahar ee gobolka Qorraxay ee dowladdeegaanka Soomaalida. sidoo kale wararka aan ka helayna gudaha garoonka ayaa sheegayo in hooyo wadatay caruur iyo gabadh eedadooda la socotay halkaasi ay ku dhaawacmeen caruurtana wali gudaha garoonka ay ku jiraan. ciidamada liyu booliska dowladdeegaanka Soomaalida, ciidamada federaalka Itoobiya iyo kuwa ammaanka ee magaalada Jigjiga oo isku dayay inay gudaha garoonka u galaan ayaa la kulmahaya rasaas xooggan oo soo ridaya shakhsiga weerarka geystay. waxaana la sheegayaa in shakhsiga hadda uu fuulay fooqa sare ee garoonka, gaar ahaan waaxda kafeteeriyada ama muqaaxida garoonka, halkaasi uu ka soo ridaya xabado xooggan. weerarkan ayaa la sheegayaa in uu ku bilowday kadib markuu khilaaf xooggan soo kala dhexgalay shakhsigan weerarka geystay iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku sugnaa gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga. dhinaca kalena uu rasaas xooggan ku furay. xaaladda magaalada Jigjiga ayaa aad u qasan, guud ahaanna waxaa la xidhay garoonka diyaaradaha jidadka soo gala iyo sidoo kale jidadka ka imaada magaalada Dhagaxbuur iyo sidoo kale magaalada Wajaale ee soo gala gudaha magaalada Jigjiga ee caasimada dowladdeegaanka Soomaalida. dhinaca kalena wararkan ka helayno magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya ayaa noo xaqiijiyay in diyaaradda Ethiopian Airline oo maanta ka soo degi lahayd garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga ay duulimaadyadeedii u weecisay dhinaca magaalada Dirdhaba aan idhaahde ee isla dowladdeegaanka Soomaalida, maadaama xaaladda amni ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga hadda uu yahay mid aad u qasan. dhinaca kalena ay adag tahay in diyaaraduhu halkaasi ay ka degaan. wax wara kama soo bixin xaaladda garoonka iyo sidoo kale rasaasta halka ka dhacay, lamana xaqiijin karo xaaladda dhabta ah iyo sidoo kale dhimashada iyo dhaawaca halkaasi ka dhacay, iyadoo oo hay'adaha ammaanku ay isku dayayaan in weerarkani ay soo afjiraan, balse warar hordhac ayaa noo xaqiijinayo in dadka halkaasi ku sugan qaybo ka mid ah ay u geeriyoodeen dhaawac halkaasi ka soo gaadhay kadib markii ay waayeen baxnaanin iyo sidoo kale dhiig joojin. waxayna wararku tibaaxayaan in hay'adaha ammaanku halkaasi ay ku bixinayaan awooddii ugu dambeysay iyo sida ay kusoo afjari lahaayeen weerarka halkaasi ka dhacay. shakhsiga geystay weerarkan ayaa la sheegayaa inuu ka soo jeedo qoomiyadda Amxaarada ama buuraleyda sare ee dalka Itoobiya oo inta badanba ah kuwa ilaaliya garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga, dhinaca kalena mas'uulka ka ah garoonkaasi. wararka magaalada Jigjiga iyo wixii ka soo baxo warbixinadeena dambe ayaad kula socon doontaan. haddana kusoo dhowaada saaxiibkay maslax oo inoo daadihin doono xaaladii ugu dambeysay dalka Itoobiya, wadahadalada TPLF iyo dowladda federaalka Itoobiya iyo dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Tigreega. dowladda Itoobiya waxa ay ku hanjabtay in toddobaadyadana soo aadan si rasmi ah u soo afjari doonto awooddii military ee kooxda TPLF. madaxweynaha Tigreegana waxa uu isaguna ku hadaaqayaa in ciidamada Itoobiyaanka ee gudaha u galay gobolka Tigreega ay yimaadeen halkii lagu aasi lahaa. Abiy Ahmed oo la jahwareersan xaaladda dhaqaale ee Itoobiya ay wajahayso ballanqaad culusna mar kale sameeyay. ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso Manrac TV, nagu soo biir, subscribe leh, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin. horaan haddii aad nala joogtay waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga. like dheh muuqaalka, garuubyada WhatsAppka iyo Facebooka inaad ku sii share garayso ayaan ka rajeynayaa. waa maalinimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 25 bisha Oktoobar sanadka 2022. waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena. aynu ka hormarnay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu isku dayayaa in iyadoo wada hadal uu u socdo TPLF iyo dowladdiisa, haddana dhinaca kale uu soo afjaro military ahaan qulqulatooyinka soo jiitamayay 20 bilood ee u dhaxeeya dowladda iyo waliba kooxdan fallaagada ah ee TPLF. waxaana Abiy Ahmed halkan la sheegay wada hadalka ka socda Koonfur Afrika
inuusan u arkin mid miro dhalaya wixii ka soo baxana lagu intifaacsan karo. haddaba Abiy iyadoo xaaladdu ay sidaa tahay ayaa waxaa dhinaca kale dadka qaar ay wararku ku tilmaamayaan in ay jiraan kalsooni xumo uu kala kulmayo inta badan qoomiyadaha, islamarkaana ay ku riixayso in dagaalkan uu sii wado islamarkaana uu sii laba jibaaro. haddaba marka la eego Abiy Ahmed waxa uu hadda go'aansaday in ciidankiisa gudaha u galay magaalooyinka taariikhiga ah ee gobolka Tigreega ay sii wadaan dagaalka, islamarkaana ay gacanta ku dhigaan deegaano hor leh iyo magaalooyin kale oo ay ku harsan yihiin jabhadda Tigreega oo military ahaan u muuqda in ay jabeen. Abiy ayaana ku hanjabay toddobaadyadana soo aadan inay soo afjari doonaan ciidankiisa kooxdan jihadiidka ah ee diidan midnimada dowladda Ethiopia. haddaba marka la eego hanjabaadaas ka soo yeertay Abiy, mid la mid ah waxa ay ka soo yeertay hoggaanka sare ee TPLF. guulo ku meel gaar ah ayay cadowgu gaareen ayuu yidhi, goobaha ay qabsadeenna shacabka ayay ku dhibaataynayaan. guushii sanad ka hor aan helnay oo kale ayaan mar kale xaqiijin doonaa. way faani karaan, laakiin dhulka Tigreegu wuxuu noqon doonaa meel lagu aaso taariikhda ayaa marag nooga ah ayuu yidhi. adigoo dal shisheeye dhulkaaga soo geliyey, dad shisheeyana keenay, karaamo iyo madax bannaani kama hadli kartid. shacabka Tigreega ayaa ah kuwa mar kasta madax bannaanida iyo sharafta Ethiopia ilaaliya. waxaa sidaas yidhi Debretsion oo la hadlayay dadkiisa, islamarkaana ugu baaqay inay dibadda u soo baxaan oo ay dagaalamaan, ciidamada Ethiopiana ay la dagaalamaan, isagoo tilmaamay inay yihiin ciidamo soo duulaan tagay oo xaq aan u lahayn in dhulka Tigreega ay ku sii sugnaadaan. haddaba Abiy Ahmed oo la kulmayay guddigiisa arrimaha wadahadalka waxa uu sheegay in loo baahan yahay in tallaabo degdeg ah laga qaado xaalado kala duwan. sidoo kale guddiyada uu la kulmay waxaa ka mid ah guddiyada dhaqaalaha, isagoona sheegaya in dhaqaale darri baahsan ay ciidamada la socon la yihiin, islamarkaana uu jeclaan lahaa xaaladda dhaqaale ee dalkiisa in si degdeg ah ay wax isaga beddesho. Abiy ayaa waxaa guddiyadan qaarkood uu u sheegay in loo baahan yahay tallaabo degdeg ah oo laga qaado dhaqaale xumida oo ay ka mid yihiin qarinta badeecadaha, sarifka lacagaha qalaad ee sharci darrada ah iyo weliba dhulqabsiga, kuwaas oo uu sheegay inay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee xilligan socdaalka maamulkiisa ku horgudban. war-saxaafadeed uu soo saaray wuxuu ku iftiimiyey in safarka barwaaqada uu ugu wanaagsan yahay in lagu hago awoodeena gudaha, annaga oo ka faa'iidaysanayna kartida dadkeena iyo khayraadka dabiiciga ah iyo kuwa taariikhiga ah ee dalkeena iyo xirfadaha hal abuurka ah ee jiilka cusub ayuu yidhi. inkasta oo ay jiraan caqabado adag, haddana wuxuu sheegay in dowladda ay ku guulaysatay inay dhisto dhaqaale adkaysi leh, iyo in sababta ugu weyn ee tani ay tahay shaqada si loo isticmaalo awoodaha gudaha ilaa xadka. taageeradana la siiyo dhinac kasta waa wax soo kordhinaya awoodeena gudaha, ma noqon karto isha ugu weyn ee horumarka. si kastoo ay noqotaba, wuxuu tilmaamay in safarka barwaaqada iyada oo la adeegsanayo karti gudaha ah ma aha caqabad la'aan. waxyeelaynta dhaqaalaha, xatooyada iyo qarinta labadaba sheeyada ugu muhiimsan ma aha wax macquul ka dhigi kara in dalkeena hodan uu sii noqdo. qarinta alaabooyinka ay ahayd in la dhoofiyo, sarifka lacagaha qalaad ee sharci darrada ah iyo dhulqabsiga ayaa ah caqabadaha hortaagan barwaaqada ee dalkeena dhaqaalihiisa hoos u dhigaya ayuu yidhi. si aan u awoodno inaan dhisano dhaqaale ka gudbi doona caqabadaha soo socda, waxaan u baahannahay halgan labalaab ah, burbur iyo horumar labaduba. si loo burburiyo qaribaadda dhaqaalaha, xatooyada iyo qarinta alaabada, waxay u baahan tahay halganka muhiimka ah ee dhammaanteen aan u wada istaageeno. halka dhanka kale uu sheegay in la filayo in wax walba si caadi ah ay ku soo laabtaan. Abiy Ahmed ayaa xaalka uu ku xun yahay
dhowr jeerna ku fashilmay qorshe uu dib u habeen ugu sameyn lahaa dhaqaalaha dalkaasi oo marba marka ka dambeysa hoos sii galaya. ra-iisul wasaare Abiy Ahmed wuxuu ku doodayaa in tuuganimada shacabka ay tahay in dowladda dhaqaale badan ay luminayso, shacabkuna ay si hoose mar walba waxyaabahooda u kala iibsanayaan oo aysan damba ka lahayn dowladda iyo dhaqaalaha ay helayso.